السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولا كسحبيال سولو هذا maantay waxaan idin wadaa barnaamijkeeni sonka iyo caafimaadka xalqadiisii saddexaad maantay xalqada saddexaad waxaynu uga hadli doonaa cuntooyinka ugu wanaagsan in lagu afro number 1 biyo badan cab ka hor inta aadan cuntada cunin cab dareero badan sida biyaha caadiga ah casiirka cabitaanada ah ama caano tani waxay jirkaaga ka saacideynaysaa fooq celinta waxay kaloo jirkaaga sii doontaa awoodda dareerayaasha uu u baahan yahay biyaha ayaa wali ah isha ugu koowaad ee fooq celinta waxaad cabtaa hal koob ilaa iyo 2 koob oo biyo ah ka hor inta aadan cuntada cunin fadlan ha cabin biyaha inta lagu guda jiro cunto cunista dhexdeeda maxaa yeelay waxay dib u dhigaysaa hanaanka dheefshiidkaaga ma fiicno in biyo cabida iyo cunto cunista la isku dhex wado iska ilaali xilliga ramadaanka cabitaanada casiirka ah waliba kuwa sokorta ay aadka ugu badan tahay waa inaad iska yaraysaa sonkorta tan labaad waxay tahay bilowga afurka shayga labaad ee biyaha ku xiga ee aad isticmaalaysaa waa timirta diini ahaan iyo dhaqan ahaanba bilowga afurka waxaa la cunaa timirta sababtoo ah timirtu waxay ka soo burqanaysaa sokor dabiici ah taasi oo u fiican jirkaaga waxayna jirkaaga ku shidaalinaysaa tamar aad loogu baahan yahay haddii aad madax xanuun dareento saacadaha ugu dambeeya soonka taasi waxay caddaynaysaa inuu hoos u dhacay heerka sokorta dhiigaaga bal markii aad afurto haddii aad 2 xaboo timir isticmaashid waxaad dareemi doontaa inaad ka bogsatay madax xanuunkii iyo wareerkii kugu jiray sidaas darteed in iftaarka ama afurkaaga aad ku bilowdid timirta aad ayay u wanaagsan tahay marka laga soo reebo biyaha tan saddexaad waxay tahay cab baaquli maraq ah maraqu waa saxan aan laga maarmin oo kamid ah afurka balse ma ahan maraq Soomaalidu ay u badan tahay kaasi oo laga sameeyo dhabarka ariga madaxa ariga iyo waliba waxyaabaha dufan kale maraqa aan ka hadlayahay ma ahan maraq dufan leh hana ku afurin xilliga afurka maraq dufan leh balse maraqa aan ka hadlayo waa maraq ka samaysan khudrad kaasi oo ka saacideynaya caafimaadka jirkaaga maraqaasi wuxuu hodan ku yahay biyaha wuxuuna ka caawinayaa inaad adkaato cuntada afraad ee aan kugu la talinayo waxay tahay cun khudradda cagaaran waxay hodan ku tahay oo ka buuxa fitamiinada macdanta iyo waliba fiberska kuwaas oo ay waliba ku yar tahay kalooriyada markasta oo aad badsato cagaarka waa markasta oo aad sare u qaado caafimaadkaaga cunto kasta oo aad isticmaalayso fadlan ku darso khudradda cagaaran ayadoo ciidina iyo waliba ayadoo cabitaan laga sameeyay cuntada shanaad waxa ay tahay dooro carbs ama carbohydrate wanaagsan ogow carbohydrate-ka waa cuntada laga helo tamarta waana cuntada lagu cayiro balse lagama maarmo in la helo cuntadaasi maxaa yeelay waa qaybta uu jirku ka helo energy-ga waana maadada ugu muhiimsan ee maskaxda qofka bini'aadamka ahi ku shaqeyso cuntooyinka afurka waa inay ku jiraan ilo muhiima oo laga heli karo carbohydrateska oo ay ka mid yihiin bariiska canjeelada baastada rootiga iyo waliba waxyaabaha kale ee tamarta laga heli karo cuntada lixaad ee aan kugu la talinayo waxay tahay isticmaal cunto protein leh xilliga afurka weyn ujeedadaadu ahaataa inaad isticmaasho cunto protein leh oo u fiican dheefshiidkaaga sidoo kalena ay ku jiraan amino acids-ka laga maarmaanka ah ee qofka jirkiisu oo u baahan yahay jirkaagu waxa uu isticmaalaa borotiinka si uu u dhiso una ilaaliyo murqaha cuntooyinkaas laga helo borotiinada waxaa kamid ah hilibka noocyadiisa kala duwan kalluunka digirta ukunta iyo waliba digaaga dhammaantood waa borotiino tayo sare leh oo dhameystiran dooro borotiinada khafiifka ah si aad u hesho faa'iidooyinka borotiinada waliba ayagoo ay dufanku yar yihiin sida kalluunka iyo digaaga oo laga fiiqay maqaarka ama caanaha ay dufanku ku yar yihiin si ay qayb uga noqdaan cuntadaada afurka haddii aad tahay qof qudaarta jecel waxaad dooran kartaa dalagyada kale kuwaasi oo laga helo borotiinada sida fuulka lowska iyo noocyada kala duwan ee digirta cuntooyinka u fiican xilliga afurka ayaan wali ku guda jirnaaye markaan qodobka lixaad waxaan kaaga dhigayaa taladaas oo ah tartiibi macnaheedu waxay tahay maanta dhan ayaa gaajisnay waxaa la soo gaaray xilliga afurka waxaa hortaada yaala cuntooyin kala duwan ha isku dayin inaad boobto ama si fudud aad ku cunto fara badan maxaa yeelay cuntada oo degdeg ku isticmaashahay nafsadaada ayay dhaawacaysaa calooshaada ayay dhaawacaysaa xitaa waxaa laga yaabaa inaad fursad u siinin ee maskaxdaada go'aan ku gaarto taasoo ah inaad dhergan tahay in kale
maxaa yeelay maskaxda qofku waxay go'aan ku gaari kartaa ilaa iyo 20 daqiiqo laakiin markii aad si degdeg ah 20 daqiiqo wax ka yar aad cunto fara badan isugu dadasho taasi waxaad ka dareemi doontaa calooshaada iyo weliba xanuunada ka dhalan kara qodobka toddobaadna wuxuu yahay iska ilaali cuntooyinka ay ku jiraan sonkorta iyo weliba cusbada iyo weliba sidoo kale dufanka uu ku badan yahay dhammaantood waa kuwo aad u khatar badan markasta ood ka fogaan karto cuntooyinka shiilan oo aad ka fogaan karto cuntooyinka sokorta leh oo aad ka fogaan karto cuntooyinka dufanka leh adiga ayay ku anfacaysaa halkii antaad cuntada ku darto cusbo oo aad dhihi lahayd cusbada dhadhan ayaan ka raadinaya waxaa muhiim ah ama ay culimada caafimaadka kula talinayaan inaad isticmaasho geedaha lagu carfiyo cuntooyinka kuwaasi oo udug iyo kar kala duwan u yeelaya cuntadaada waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkeena hadda halkan soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa fadlan channelka noo subscribe garay page-kana noo follow garay waad ku mahadsan tahay la socoshada barnaamijkeena intaan ku kulmi doono xalqada xigta waxaan idinkaga tegayaa ramadaan wanaagsan afur wanaagsan